kula dhaqan qof walba sida aad kula dhaqanto nafsadaada ha yasin ha xaqirin been ha u sheegin ha xaman hana isku dayin inaad qof dulmiso waayo samanku waa wareegto kadib waxa uu ku dhadhansiiyaa waxaad samaysay dabcan waad rabtaa inaad noqotid qof la jecel yahay haddaba aniga kuu sheego doonay sabab lagu jeclaan doono video like noo sidoo kale channelka subscribe dheh kow danaysiga qofka inuu muhiim yahay haddii aad doonayso in dadku ku jeclaadaan kuna qadariyaan la kulankaagana u soo xiisaan danaysi inuu agtaada ku weyn yahay qof walba wuxuu jecel yahay in uu dareemo in uu muhiim yahay laba ku bilow salaan qiimo leh salaanta waxay badanaysaa jacaylka ay dadka ku qaadayaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri salaanta badiya oo faafiya waad isjeclaanaysaane salaanta kuma xirna qofka aad taqaanid ee salaan midka aad taqaano iyo midka aadan aqoonba saddex dadka kala hadal waxa ay daneynayaan qof walba waxa uu doonayaa in laga hadlo baahidiisa maadaama dadka aan wada helin cid kala hadasha waxa ay rabaan in lagala sheekaysto lagana wareysto haddii aad adiga booskaas u buuxisid waxaad noqonaysaa qof agtiisa ku weyn oo in badan uu soo xasuusto qofka aad la kulanto ka wareyso riyooyinkiisa waxyaabo uu jecel yahay in uu qabto iyo wax la mid ah waxa hubaal ah haddii uu walaalka yahay haddii uu waalidkaaga yahay haddii uu saaxiibka yahay iyo haddii cid kale ay tahayba in uu wax badan dadka ka soo dhaweysan doono afar booska dadka iska dhig dadka waxaad u muujisaa inaad aqbasho cudurdaarkooda adigoo isdhigaya booskooda ay taagan yihiin dadka haddii aad sida kula dhaqanto waxay dareemayaan in aad iyaga dantooda u taagan tahay waxayna kugu haynayaan qalbigooda iyaga oo ku muujinaya dareen jacayl iyo mid naxariis shan ceebaha dadka ha sheegin haddii aad rabto inaad dadka kasbato waa inaad ka dheeraataa ceebaha dadka sababtoo ah qofkaas wuxuu leeyahay ceeb u gaar ah tusaale ahaan maalin ayay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku arkeen Abdullah ibn Mas'ud isagoo oo geed cad ka soo goosanaya oo dabayshuna marba dhinac u tuureyso markaas ayay ku qosleen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maxaa la qoslaysaan waxay dhaheen lugihiisa caatada ah wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaah baan ku dhaartay lugihiisa miisaanka waxay ka culus yihiin buurta Uhud lix qira qaladka aad gashay marka aad qiratay qaladkii aad gashay oo aad ka raali gelisay qofkii waxaad qiyaastaa qofkaas kalsooni inta leeg ayuu kugu qabaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ina baray duco cajiib ah oo aynu ku ducaysano maalin kasta iyo habeen kasta ducadaas oo ah waxaan qirayaa nimcada aad korkayga ku nimcaysatay waxaan kale oo aan ilaahay u qirayaa dambigeygii ee ii dambi dhaaf maxaa yeelay cid dambi dhaafta ma jirto aan adiga ahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo cadeeyay in ducadan qofkii ku ducaysa subaxdii ee dhinta isla maalintaas uu jannada galay qofkii ku ducaysa galabtiina ee dhinta islaamiinkaas uu jannada galay toddobo isu hadiyaya waad isjeclaanaysaan hadiyadu waa dhaqan oo inooga dardarmo nabigeena sallallahu alayhi wasallam in aan isku hadiyeyno waxyaabo qaali ah iyo waxyaabo aan qaali ahaynba si aan isku jeclaano nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri isku hadiyaya waad isjeclaanaysaan sideed dadka u naxariiso adigana ha lagu naxariistee nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kuwa naxariista waxa uu naxariisanaya iyagana naxariista Allah u naxariista kuwa dhulka jooga waxa idin naxariisanaya kan samada jooga sagaal la tasho oo taageero ka dalbo dadka haddii aad asxaabtaada ku dhahdid qorshahan aynu qaadanay bal talo ka bixiya maxay idin la tahay fikirkiina waa inoo muhiim fadlan nala wadaag aragtidaada ereyadaas waxay dadka dareensiinaysaa in horumarka la rajaynayo ay qayb ka yihiin marka aad fikrad soo bandhigayso qofka dareensii inay tahay wax aad wada leedihiin oo aadan ka aqli badnayn toban ha hilmaamin isqurxinta iyo nadaafadda quruxda iyo nadaafadda waxay soo jiidataa isha dadkuna way kugu jeclaanayaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilaahay wuu qurxoon yahay waxa uu jecel yahay quruxda iyo waxa qurxan oo idil 11 ballanta ilaali diintana waxay marar badan nagu dhiirigelisay ballanta in aan ilaalino taas oo la gaarsiiyay heer munaafiq lagu tilmaamo qofkii oofinteeda aan ku dadaalin afkaaga adaa faraha u haya ee wixii aad ballan qaadayso miisaanka saar 12 caawi xilliyada adag dadka ma iloobaan qofkii caawiya xilliyada adag sidoo kale ha dhihin hebel ima yaqaan waqtiga uu danta iga leeyahay maahane laakiin waxaad dhahdaa waxaa mahadle Ali igu karaamiyay inaan dadka dantooda u fuliyo sababtoo ah waxa jira xadiis dhahaya
dadka Alle agtiisa loogu jecel yahay waa dadka ugu anfaca badan dadka. 13 dareensii in aad wanaag la jeceshahay. 14 xifdi magacyada dadka uguna wac magacyada ama naanaysta ay jecel yihiin in loogu waco. 15 qof kasta dabeecadiisa oo wanaagsan kula dhaqan si aad u soo jiidato.